Afrika waxay leedahay kheyraad dabiici oo aad u badan oo ay ka mid yihiin dhaymanka, cusbada, dahabka, birta, cobalt, uranium, qalinka iyo batroolka. Sidoo kale kaymaha iyo miraha kulaylaha ku baxa. Xilliyadii u dambeysayna helidda shidaalka laga helay qaaradda waxay kor u sii qaaday muhiimadda ay leedahay Afrika. Afrika waa qaarad aad u soo saarta biraha iyo macdanaha kala duwan ee muhiimka ah. Biraha ay dhoofiyaan wadamada Afrika waxaa ka mid ah uranium oo loo adeegsado soo saarista tamarta nuclear-ka, platinum oo loo isticmaalo mujawharaadka, nickel oo loo adeegsado samaynta birta aan daxlaysan, birlabta iyo baytariyada dib loo jaajargareeyo, bauxite oo loo adeegsado soo saarista macdanta aluminiumka ee ugu weyn. Sidoo kale waxaa loo adeegsadaa soo saarista kiimikooyinka ama shamiindada. Sanadii 2008 Afrika waxay soo saartay 22% dahabka laga soo saaray adduunka. Wadamadaas dahabka Afrika soo saara waxay kala yihiin Koonfur Afrika, Ghana, Guinea, Mali iyo Tanzania. Sidoo kale qaaraddu waxay soo saartaa 55% dhaymanka adduunka. Botswana, Angola, South Africa, the Democratic Republic of Congo iyo Namibia waa wadamada ugu badan ee soo saara dhaymanka Afrika. Laakiinse nasiib daro, isku dhac badan iyo dagaalo sokeeya oo ka dhacay qaaradda Afrika waxaa sababay oo maalgeliyay warshadaha dhaymanka soo saara. Dhaymanka ka imaanaya wadamadaasna waxaa loo yaqaanaa dhaymanka dagaalka. Afrika waxay hoy u tahay keedadka saliidda iyo gaaska dabiiciga. 2007 qaaraddu waxay soo saartay 12% wax soo saarka saliidda ee adduunka iyo 6% wax soo saarka gaaska dabiiciga ah. Nigeria, Liibiya, Algeria, Egypt iyo Angola ayaa ah wadamada soo saara saliidda Afrika. Sidoo kale sahminta shidaalka ee qaaradda ayaa si weyn u sii kordhayay xilliyadii u dambeysay. Ayadoo waxaan oo kheyraad ah ay dadka Afrika haystaan, haddana Afrika waa qaaradda ugu faqrisan. 28 ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka waa wadamo Afrika ku yaala. Kala bar dadka Afrika waxay ku nool yihiin faqri, mana helaan baahiyaha asaasiga ah ee aadanaha sida nafaqada, biyo nadiif ah, hoy iyo waxyaabo kale oo lama huraan u ah nolosha aadanaha. 47% dadka Afrika waxay ku nool yihiin $1 ama wax ka yar maalintii. In ka badan 1 milyan oo qof oo u badan carruur ka yar 5 sano ayaa sanad kasta u dhinta malaria. Dhimashada cudurka malaria ee adduunka qaaradda Afrika oo kaliya waxay ka tahay 90%. 80% dhibanayaashaasi waa carruur Afrikaan ah. Mashruuca Millennium ee qaramada midoobay wuxuu sheegay in 30 ilbiriqsi kasta hal cunug oo Afrikaan ah uu u dhinto cudurka malaria, yacni maalin kasta waxaa u dhimata 3,000 oo carruur ah. 40% qaangaarka Afrika ayaan waxba qorin waxna aqrin. Inkastoo tirada iskuulada qaaradda ay sii kordhayaan, haddana tayada waxbarashada iyo guud ahaan xaadiritaanka ayaa weli hooseeya. Farqiga dhaqaale ee u dhexeeya taajirka iyo faqiirka qaaradda waa mid weyn oo haddana sii kordhaya. Sababaha gaajada Afrika waxaa ka mid ah saboolnimada, isku dhaca iyo dagaalada sokeeye. Sababahani waxay abuuraan arrimo ay ka mid yihiin cudur, xasuuq iyo dhibaatooyin kale oo badan oo ka dhasha cunno la'aan iyo caafimaad daro. Musuqmaasuqa qaaradda ayaa sii adkeynaya in laga adkaado faqriga baahsan ee qaaradda Afrika. Ogaanshaha xaaladda adag ee Afrika ka jirta waxay tusaysaa oo kaliya shaqada u baahan in la qabto. Afrika waa qaarad halgan nololeed ku jirta. Xaqiiqooyinka la xiriira faqriga ka jira qaaradda Afrika waxay tilmaamayaan dhibaatada cakiran haysata dawladaha Afrika.